madaxweynaha jamhuuriyadda Ireland mudane Michael Daniel Higgins waxa uu dhashay 1941 bishii Abriil 18-keedii waxaana ku dhashay magaalada Limerick. Aabihii waxaa loo yaqaanay John Higgins waxa aanu ka yimid countiga la yiraahdo Clare. Wuxuu ahaan jiray sarkaal ka tirsan ciidamadii Irish Republican Army. John Higgins waxay wada lahaayeen laba carruur oo la kala oran jiray Peter iyo Michael. waxay ka qayb qaateen dagaalkii madax-bannaanida ee jamhuuriyadda Ireland. John wuxuu ahaa nin active ku ah xagga halgankaasi. waxa aanu Higgins oo ah Michael Daniel Higgins oo ah wiilkiisa waxa uu u diray iskuulka loo yaqaanay Ballycar National School oo ku yaala countiga Clare. waxaanu madaxweyne Michael Daniel Higgins uu ka baxay dugsigaasi iyo college loo yaqaanay Rhiannon College. waxa uu ka qalin jabiyay jaamacadda Galway waxaanu halkaasi ugu shaqeeyay odad ku xigeen. kadibna waxa uu noqday 1963 ilaa 64 madaxa odadka ee jaamacaddaasi. waxaanu madaxweyne Higgins uu noqday madaxweynaha jaamacadda ee ardayda 1964 ilaa 65. Higgins wuxuu ka qalin jabiyay jaamacadda Indiana University Bloomington isagoo sameeyay shahaadada Master of Arts degree in Sociology. kadibna waxa uu course gaaban u tagay jaamacadda Manchester. madaxweyne Michael Higgins waxa uu waxbarasho kale u tagay jaamacadda loo yaqaano Southern Illinois University dalkaasi Mareykanka. xirfadiisii siyaasadeed ee laga bilaabo 1973 markuu shaqo u wareegay ilaa 2011. Higgins original ahaan ama asal ahaan wuxuu galay xisbiga Fianna Fáil markii uu ahaa madaxweynaha jaamacadda Galway. kadibna wuxuu uga wareegay xisbiga Labour Party-ga muddo yar kadib, halkaasoo uu ka noqday musharax 1969 ilaa 73 doorashadii guud ee ka dhacday dalkaasi, taas oo aan ku guuleysan. laakiin haddana mar kale wuxuu noqday inuu musharax. Higgins waxaana loo doortay 1970 golaha sanadkii 13aad waxaana magacaabay tashaji xilliga Limo Kusangaraf. waxa uu noqday haddana mar kale in loo doorto golaha dil ee baarlamaanka 1981 doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday isagoo xisbiga Labour-ka u matalaya inuu noqdo mudane. waxaa haddana dib loogu doortay February 1982 hase ahaatee markii la doorashadii 1982 wuxuu la iskareeyay seatkiisii November 1982. laakiin golaha sanadka ayuu ku noqday mar kale. waxa haddana uu noqday mayorka magaalada Galway, halkaas oo uu 1982 ilaa 1983 ilaa 1991 ilaa 1992 uu ahaa mayorka magaaladaasi isagoo matalaya xisbiga Labour Party-ga. 1980 ama 80kii waxa uu ahaa dadka ugu caansan ee mucaaradka ee isbahaysiga mucaaradka ku jira. Higgins waxa uu ku noqday golaha dil 1987 doorashadii guud waxaanu helnay seatka baarlamaanka ilaa 2011. 1999 wuxuu galay golaha wasiirada waxaanu noqday wasiirka artiska iyo dhaqanka. kadibna waxa uu lagu xasuustaa xilliga wasiirka ahaa inuu sameeyay idaacadda Irishka ama Irish Film Board. waa telefishin caan ah oo luqadda Irishka ka baxa. wuxuu ka tegay taariikh. waxa uu markii dambe Labour-ku u doortay 2000 inuu noqdo hogaamiyaha xisbigaasi Labour Party-ga. wuxuu watay siyaasadiisii waxaanu noqday afhayeenka arrimaha dibadda. doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi Ireland Michael Higgins waxa uu Labour ku soo sharaxay madaxweyne
waxaana ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Ireland 2011. madaxweyne Michael E. Higgins waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah isaga oo si weyn caan ugu noqday oo ololeynta la dagaalanka gaajada, saboolnimada iyo xuquuqda dumarka. waxa uu u tegay booqasho dalalka Afrika iyo Latin America. waxa uu noqday nin ay u naxariista dadka muhaajiriinta ah ee dalkiisa yimaada. waa nin taariikhdu ay si weyn u tabi doonto u xusi doonto, waana iminka madaxweynaha jamhuuriyadda Ireland.